بسم الله الرحمن الرحيم. kan waa qaybtii tobanaad crypto serieski aan soo wadnay. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa loo yaqaano mining iyo staking. Waxyaabaa la yidhaahdo waxa ay yihiin inaan sharxo xoogaa. Mininga waxaa la yidhaahdaa waa processka oo lagu hubinayo transactionada blockchain-ka isla markaasna lagu darayo blockchain-ka. Mining dhanba uu sheegaya intaas waaye, yani in transactionada oo cryptocurrencies-ka inay hubiso oo verification ku samayso isla markaana ay lagu daro blockchain-ka. Waxaana sameeyo ku wax loo yaqaano miners. Miners marka waa kombiyuutar aad u awood badan oo loogu talagalay inay yani shaqadaas oo specific ay qabtaan. Badanaa Bitcoin-ka oo kale ugu weyn network-geeda mining-keeda waa kuwa loo yaqaano ASIC miners oo saa ugu jeedaan sawirka. Marka kombiyuutaradaas awoodda badan ayaa mid walba wuxuu isku dayayaa inuu midka kale kaga hormaro in hal xiraale ama puzzle wax la yiraahdo horta kooda hore inuu xalliyo. Midkii ugu horeeya ugu awood badan ayaa xalinaya for example. Kadib markuu kaas xalliyo wuxuu qabsanayaa transactionkii block ahaa oo 10 daqiiqo blockii samaysmayo oo Bitcoin-ka. Asaa marka verify gareynayo oo hubinayo wax bay sax yihiin, kadibna wuxuu sameynayaa wuxuu ku darayaa blockchain-ka. Marka su'aasha imaanaysa waxay tahay maxaa loogu baahan yahay miners ama mining maxaa loogu baahan yahay? Waxa loogu baahan yahay waxay tahay ugu muhiimsan horta marka koowaad security-ga network-ga ay qayb ka yihiin. Haddii hal qolo ay sameyso mining-ga oo yani Bitcoin-ka wax ka bedeli karaan, cryptocurrency wax ka bedeli karaan. Laakiin midkan maadaama qof walba uu computer inta ku xiro oo maaragtay uu network-ga qayb ka yahay, halkaas waxaa imaanaya security awood badan oo network uu leeyahay oo blockchain-ka Bitcoin-ka kale iyo cryptocurrency-ka uu leeyahay. isla markaasna hubinaya inay transaction kasta inuu yahay mid sax ah oo legitimate ah oo ay isan ku jirin mid khiyaano leh ama waxa loo yaqaan double spending wax la yiraahdo. Tan kale oo muhiim ka dhigaysa minerska ama miningna waxa waaye decentralization waxa leeyahay inay blockchain-ka oo crypto kale oo dhan inay tahay decentralized wax aan hal qolob maamulin oo maaragtay adduunka dhan ku wada baahsan oo haddii xataa problem wadanka dhaco ay sii socon karto Bitcoin-ki. Marka decentralization-kaasna waxa la yiraahdaa muhiim u tahay minerska. Waxay kaloo ay leedahay wax loo yaqaan reward system-ka abaalmarinta. For example Bitcoin-ka oo kale hadda 10 daqiiqo block kasta markii minerkii qabta ee ka shaqeeya verify gareeya blockchain ku dara wuxuu helayaa laba wax oo abaalmarin ah. Waa marka koowaad transaction fee waxa loo yaqaano oo Bitcoin-ka aad diraysid fee-ga laga goynayo ama network fee-ga waa ko. Midda labaadna wuxuu helayaa wax loo yaqaano Bitcoin-ka. Marka 10 daqiiqo hadda suuqa waxaa soo gala maaragtay sanadka 2024 ilaa 2028 3.125 Bitcoin. Marka kaas ayuu helayaa minerskii. Marka waxa ay sameeyaan waxa waaye kooda hore markii transactionka aad wallet-ka ka diraysid oo network gelinaysid network ayaa yani wax hal xiraale camal weydiinaya minerska oo dhan. Adduunka minerska jooga dhan ku tartamaya marka. Mid walba midku ka awood badan yahay ka system fiican yahay oo isku dayaya inuu asaga arrinta xalliyo. Kan ugu horeeya xalliyo ayaa transactionkaas la wareegaya. Marka qaabka u shaqeeya waxa waaye inuu verify gareeyo transactionadii oo inay sax tahay oo validation ku sameeyo oo sameynaya ka bacdi block-gii sameynaya verified ah ayuu wuxuu ku darayaa blockchain-kii. Markuu blockchain-ka ku daro marka qof walba arki kara oo lama bedeli karo oo waxba lagama saari karo waa sud ugu daray. Kadibna waxay helayaan cryptocurrencies-ka aan soo sheegnay sida Bitcoin ama Dogecoin ama hadba maaragtay blockchain-ka cryptocurrency ay isticmaalayso. Kan Bitcoin-ka kale blockchain-keeda waxa loo yaqaanaa proof of work oo kombiyuutaradaas awood badan wada shaqeynaya halka Ethereum-ka keeda uu yahay proof of stake oo ah qofka inuu maaragtay Ethereum tagato uu staking ku sameeyo. Marka waxa ay muhiimka ugu tahay network ahaanta waa inay fraud-ka ka hortagayso inay tahay maaragtay consensus waxa loo yaqaan inuu leeyahay minerska oo dhan badanaa ku heshiinaya oo ku wada heshiinaya inuu transaction-ka sax yahay si aan hadhow loo bedeli karin. Waxa kale ay qabtaan waxa waaye immutability waxa leeyahay oo ah inaan la bedeli karin mar alla markii block-gaas la geliyo blockchain-ka inaan waxba laga bedeli karin iyo inuu decentralized control yahay oo aan maaragtay qof gooniya oo isan maamulin oo kulli nin walba computer-ka uu soo gashto uu qayb ka yahay Bitcoin-ka iyo network-geeda uu qayb ka yahay oo hal qolo aysan maamulin si looga hortago in ay qolaha hadhow control-ka inta la wareegto
ay maaragtay dhibaato ku samayso bitcoin-kii oo kale. Marka dad badanaa waxay yidhaahdaan mining-ga khaasatan midkan la leeyahay proof of work oo bitcoin-ka ay isticmaasho cimilada ama environment-ga dhib ay ku tahay. Dad badanaa bilaabay inay ka hadlaan oo yidhahdaan koronto aad u fara badan ama electricity aad u fara badan ay isticmaashaa, oo sababta ah waa computer walba computer uu ka awood badan yahay, uu ka electricity isticmaal badan yahay. Waxaa la yidhaahdaa maaragtay bitcoin mining-ga adduunka korontada ay isticmaalayso waxay la mid tahay sida waddan yariis oo kale korontada uu isticmaalayo kale. Marka koronto aad u fara badan ay isticmaashaa la yidhahdaa, oo waxay kaloo leedahay la yidhahdaa carbon footprint, oo dadka cimilada maaragtay arrimaheeda u dooda way kasoo horjeedaan in bitcoin-ka uu ku shaqeeyo proof of work-gaas. waxaa kaloo la yidhahdaa oo ay leedahay oo cimilada environment-ga halis ku ah e-waste, yani minerska mar walba waxaa laga yaabaa sanad haddii ay isticmaashid systemka minerka inuu midka cusub uu soo baxay oo kii hore la tuuro meesha qashin qubka la geeyo. Marka kaasna waxaa la yidhahdaa waste fara badan uu leeyahay mining-ga oo for example bitcoin-ka oo kale. Marka hadda waxaa lagu qiyaasaa inay isticmaasho 100 terabyte oo maaragtay koronto ah inay isticmaalaan bitcoin minerska ayaa lagu qiyaasaa sanadkii, oo wax aad fara badan. Marka hadda waxaa bilaabay inay mining gareeyaan wadamada korontada xoogaa badan leh sida Ethiopia oo kale, oo markii ay samaysatay daamkii oo kale koronto heshay, wadamo oo shidaal leh oo kale oo maaragtay koronto fara badan free ku heli kara. Kuwaas oo kale hadda badanaa aad u jecel inay mining gareeyaan bitcoin-ka. Staking-ga marka waa ka duwan yahay mining-ga wataan soo sheegnay waa kombiyuutarada waaweyn ka badan. Staking-ga laakiin waxa weeyaan in waa process oo qofku cryptocurrency-giisa uu loo gareynayo muddo. For example Ethereum oo kale waxaa dhihi kartaa 1 sano ama 2 sano inaad rabtid inaad loo gareysid si uga wada noqdo network-ga, isla markaana qayb uga qaato secure gareynta network-ga. Marka qofka lacagtiisaas uu dhiganayaa oo uu ku xirayaa maaragtay qayb ka mid ah maaragtay uu xirayaa oo lock uu ku samaynayaa muddo cayiman. kadibna marka wuxuu sameynayaa transactionka uu qayb ka noqonaya inuu validate gareeyo, wuxuuna helayaa markaas abaalmarin uu helayaa. Marka waxa waaye in waxaa leh hadda staking oo kale Ethereum oo kale leh, kuwa kale leh cryptocurrencies ka kale leh waxaa ka mid ah Luna ama Terra Luna Classic mid la leeyahay oo kale, Solana oo kale ka mid ah. badanaa hadda cryptocurrencies ka badan oo imaanayo waxay jecel yihiin inay ka dhigaan proof of stake, maadaama proof of work oo bitcoin-ku koronto aad iyo aad fara badan uu u baahan yahay. Marka staking-ga dadka qaarkood waxay yiraahdaan waxay la mid tahay sida adoo lacag inta bangiga geeyay bangiga ku xiray lacagta oo yiri muddo intaas la igama qaadanayo si aad qayb uga noqoto bangiga, isla markaana aad interest u hesho ama oo diin ahaan xaaraan ah interest-ga. laakiin dad badan oo diinta ka hadlay staking waxay yiraahdaan wax xalaal ay yiraahdaan, sababtoo ah adiga interest uma qaadanaysid inaad maaragtay yani lacagtaada deyn dadka lagu siiyay, laakiin waxaa qaadanaysaa waa abaalmarin maadaama aad qayb ka tahay secure gareynta network-ga. Marka taasna waxay u baahantay koley baaritaan kale oo dheeraad iyo dad culimo in lagala kaashado arrimaha staking-ka inay xalaal tahay iyo in kale. marka mining-ga iyo staking marka waxay kala duwan yihiin waxa waaye mechanism-ka oo mining-ga waa proof of work, halka staking-ka uu yahay proof of stake waxa la yiraahdo ama POS. ka mining-na waa BOW. koronto isticmaalka mining-ga aad u fara badan oo koronto aad u fara badan isticmaala, halka staking-ga uu koronto isticmaalan oo computer yani aad u baahneenba inaad maaragtay koronto badan u isticmaalo. qalabka loo baahan yahay hardware-ka mining oo kale waxaa loo baahan yahay qalab gooni ah oo loogu talagalay oo badanaa loo yaqaan oo specialized oo loo yaqaan ASIC mining, halka staking-ga aan wax qalab gooni ah loo baahnayn. abaalmarinta wuxuu helayaa qofka labadoodaba cryptocurrency uu helayaa ama mid cusub ama network fee uu helayaa. environment ahaana marka loo fiirsho mining-ga aad environment-ga dhib ku ah la yiraahdo impactful ku ah, halka kan kale uusan ahayn mid oo impact ku ah. staking marka isaga faa'iidada la yiraahdo uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu energy ahaan inuu koronto badan isticmaalo uusan adduunka wareer ku ahayn oo qof walba uu maaragtay staking-ka qayb ka noqon karo. in maaragtay aadan u baahnayn qalab gooni inaad soo geysato qaaliya, halka bitcoin-ka kale mining-keeda qalab gooni aad u baahantay inaad soo geysatid mar walbana uu isbedelayo. badanaa marka hadda waxaa la yiraahdaa bitcoin miners waxaa noqon kara shirkada awood loo $200 milyan iyo waxaas leh. marka staking-ka waxaa kaloo la yiraahdaa wuxuu ku soo saari karaa qofkii xoogaa crypto coin fara badan xirta
passive income wax la yiraahdo oo ah lacag maaragtay maalin walba uu ku soo saarayo maadaama crypto aad helaysid cryptodaas aad gadi kartaa marka passive income aa la yiraahdaa qaybna waxaa ka tahay mar haddaa staking kaa sameynaysid security-ga oo cryptocurrency-ga marka saan idin sheegay kuwa ugu caansan waa Ethereum waa Cardano waxay staking kale waa crypto.com midan leh CRO-ga Solana kale Luna kuwaas oo dhan ka mid ah marka staking-ka asagana marka ciladaha uu leeyahay oo riskiga uu leeyahay waxaa ka mid ah muddada aad helaysid cryptadaada yani for example hadda midaan la leeyahay Terra Luna classic waliba had midda loo baxshay dad badanaa waxay sameeyeen lockup period oo xoogaa dheer ay ku xireen markii ay crash garoobaysay qofkii lama bixi karo lacagtiisa marka lacagtaadii meeshaas ku xayran tahay inta muddadaas laga gaarayo for example waxaad tiri 6 bilood 6daas bilood inta ka hor iskama bixin kartid waana 6daas bilood la sugaa marka ay riskiga ay leedahay taasoo kale ka mid ah waxaa laga yaabaa muddadaas markaa sugaysa inay cryptadii aad hoos ugu daato oo aad khasaaro weyn ka soo gaaro muxuu ahay midda kale jirto waa price fluctuation waxa leeyahay oo yani cryptocurrencies-kii kor ay aadi karto inay hoos aadi karto haddii marka waxa loo yaqaana marka kuwan staking lagu sameeyo waxa loo yaqaanaa validators marka riskiga ay leeyihiin waxaa ka mid ah hal qof waxaa laga yaabaa inuusan awood wada lahayn inuu node wax la yiraahdo samaysto ama validator node uu samaysto marka dad badan oo isku tagtagaa marka Ethereum-kii oo kale ama Solana ama CRO oo kale wuxuu qayb ka noqonayaa validators kale oo jira marka haddii validatorkaas si xun loo manage gareeyo ayadan waxaa laga yaabaa inay maaragtay lacagaha qaarkood lose garaysid ayaa laga yaabaa xoogaa waxaa kaloo la yiraahdaa staking wuxuu kaga duwan yahay mining-ga centralization uu noqdaa badanaa maadaama dad fara badan aysan haysanin maaragtay lacagta intaas la ego ku stake gareeyaan marka waxaa la yiraahdaa shirkadaha waaweynka oo kale ayaa badanaa dominate gareeya ama validator inta dad isku keensada asaga markaas awood u sameynaya sida hadda Luna oo kale waxay leeyihiin wax la yiraahdo governance oo qofku uu codayn karaa dhow marka staking inta haysatid iyo codayntaadoo kale isku awood ay noqon karaan marka riskiga ay leedahay taasaa ka mid ah marka waxaa kusoo gabagabeynaa mining-ga iyo staking-ga waa wax muhiim u ah inay maaragtay hubiyaan ammaanka security-ga oo network-ga oo cryptocurrencies-ka qayb muhiim ayana ka soo qaateen bitcoin oo kale for example in la barto oo dadka ay barto maadaama qof kasta uu qayb ka qaadan karo inuu bitcoin-kii maangareeyo marka waxaa badanaa hadda waxaa loo socdaa oo cryptocurrencies-ka cusub badanaa wada aadaan midkan proof of stake la leeyahay ayaa loo badan yahay oo maadaama energy korontada isticmaalaya ee aad u yarta intaasaan kusoo gabagabeynaya waa mahadsantihiin wixii su-aalaha iyo commentiga noogu dhaafa insha allah tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu